السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا qiimaha badan meel baa joogtaa waa salaamantihiin oo walaalkiin injineer Kaafi Cabdullaahi kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaa uga hadlayaa sidee loo bedelaa shahaadooyinkaaga dugsiga sare iyo shahaadooyinkaaga jaamacadaha ama bachelor ama master wuxuu yahayba kadibna ugu shaqaysan lahayd ama wax ugu baran lahayd dalkan Spain. maanta muuqaalkeena intaas uu daaran yahay. fadlan haddaa iga daawanayso barteeda YouTube-ka subscribe sar, sidoo kale haddaa iga daawanayso barteeda Facebook page-ka aan ku leeyahay ugu qor magaca injineer Kaafi Cabdullaahi, follow soo dheh, sidoo kale muuqaalkan u share garee asxaabta iyo qusayso. haddii aad joogtid dalka Spain, qaab walba aad ku timaadid, ama tahriib ku imaw ama dacwad ku imaw ama xaduud ka soo gudub, haddaad haysatid shahaado Soomaali ah oo asal ah ama original ah, taasoo ay tahay shahaadada dugsiga sare ama shahaado jaamacadeed, steebyada oo mari lahayd waxyaalihii kaa fududeyn lahaa sida shahaadada u bedelan lahayd, wadadaas oo aniga hore aan usoo maray, ana doonayo walaalaha iga dambeeyo aan u faa'iideynayo inaysan ku wareerin shahaadooyinkaas sidii u bedeli lahayn. ugu horeyn, shahaadada markii la bedelayo afka Spanish waxaa loo yaqaanaa homologación loo yaqaanaa. shahaadada marka laba nooc ay u kala baxdaa: in loo bedelo homologación ama in loo bedelo equivalencia. labadaas qaabood ayaa shahaadooyinka loo bedelaa, laakiinse dugsiga sare markuu yahay waxaa loo bedelaa homologación oo kaliya, laakiinse midka jaamacadaha ayaa waxaa loo bedelaa ama homologación ama waxaa loo bedelaa equivalencia. Okay, step-ka ugu horeeya qaadaysid muxuu yahay? step-ka ugu horeeya qaadaysid haddaa haysatid shahaado asal ah oo original ah, taasoo aan cabdirashiideye aan ahayn, waxaa sameynaysaa, waxaa kasoo tasdiiqsanaysaa wasaaradda waxbarashada. ugu horeyn wasaaradda waxbarashada ayaa tasdiiqin kasoo qaadanaysaa. waxaa tasdiiqin kasoo qaadanaysaa ama istaambo kasoo qaadanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda. markaad wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha dibadda aad tasdiiqin kasoo qaadatid, marka saddexaad waxaa tasdiiqin kasoo qaadanaysaa mid ka mid ah safaaradaha iyo Soomaaliya ay ku leedahay wadamadan Yurub, siiba wadamada u dhow dalka Spain. haddii aad awoodinna waa kasoo qaadan kartaa meesha aad doontid, laakiinse ani ahaanteed waxaan kuula talin lahaa wadamada u dhow Spain inaad kasoo tasdiiqsatid shahaadadaada. saddexdaas tasdiiqin haddaa wadatid waa midda koowaad oo ah tasdiiqinta wasaaradda waxbarashada, 2 tasdiiqinta wasaaradda arrimaha dibadda, 3 tasdiiqinta safaaradeed. saddexdaas tasdiiqin markaa wadatid oo aad dalka Spain aad joogtid, waxaa sameynaysaa turjumaan inaad shahaadadaada aad u turjuntid luqadda afka Isbaanishka. waxaa jiro shirkadooyin kaa caawinayo inay ku turjumaan shahaadadaada. marka intaas oo wado soo martid oo aad shahaadadaada aad turjuntay, hadda ayay kala baxaysaa. haddii aad soo turjuntay shahaadadaada dugsiga sareeto, waxaa sameynaysaa wax loo yaqaan homologación, waxaana kaa caawinayo wasaaradda waxbarashada.